xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxay kormeer balaaran oo indhayn ay ku soo mareen qaar kamid ah goobaha ay ka socoto diiwaangelinta codbixiyuhu waxaana xubnaha wasiirada ee maanta kormeerka sameeyay kamid ah wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sulub Maxamed iyo waliba maamulka gobolka Togdheer waxaana mas'uuliyiintu goob kasta ay maanta booqdaan ay halkaasi kula kulmayeen maamulka komishiga doorashooyinka u qaabilsan goobahaasi kala duwan iyagoo halkaasina warbixino kaga dhageysanayay kormeerkaasi kadib wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Sulub Maxamed iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed oo la hadlay warbaahinta ayaa hadaladoodii wax kamid ah sida tan waxaanu joognaa maalintii labaad ay diiwaangelintu ka socoto gobolka Togdheer iyo qaybo kamid ah gobolka Sanaag iyo Sool oo ah aynaba عرف وين يقرأك وحن ورك وهاي حكومة دهان أنا أنت بسو سحب سميع أو قصة ترنتي أنا كساق كرمير بان كقرب حني قبل كتقدر مقال مدة حديثة برعة تامه هذا كل الدون وحن صارق نشغل دوس في عنو سعطاء ضد كسو عن سدي وانجرينية وحلي على وحي عادي هذا اللي لها شيء ميل قرب كير حماده iyo meel birtirka xumaada iyo waxaas commission ka soo warhaya annaguna waan ku xoojinay dareenkayagii dadkuna si wacan oo niyad sameeyay ay isu diiwaan gelinayeen waxa quraha aan ku buurinayna waxa weeye dadka aanu leenahay marka hore waxa haystaan waa 4 casho 4 casho ka faa'iideysta hal is diiwaan geliyo diiwaan gelinta waxa weeye waxa dadka is diiwaan gelinaya dadkii aan hore isu diiwaan gelin iyo dadka qaan gaaray wixii inta ka duwan ee kaar bedel ah ee kaar lumay ah qof doonaya inuu gobolkan uu joogo muujiyo meel kale ka qaatay oo ka bedesho waqtigeeda ay leedahay waxaanu helay dhaliiraha oranaya dadkii oo kaararkii hore haysta inay galeen dabadna labadii kaarba ka gubteen dabadna qofkaas saas ku cod waayay waxaanu uga digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba qof kaar leh inaanu toosu gelin oo kaar laba isku day inuu qaato haduu doonayo inuu kaarka bedesho waqti buu leeyahay waqtigiisa ha galo diiwaan gelintu xilligan ay imika ku beegantay Soomaalida waxay ku mahmaahdaa hal ceel bay ceel joogtaa waa xilliga kaliya ee qofka muwaadinkiihi ay suuragal u tahay inuu codkiisa diiwaan gashado sidoo xaqiisa u helo oo uu u doorto cida nidaamka dawladda hadii ay tahay golihiisa deegaanka iyo hadii ay tahay golihiisa wakiilada u doorto sida laasligeed waxa laga maarmaan noqonaysa in dadku aad iyo aad xil isaga saaraan oo tirada gobolkooda xil iska saaraan oo codkiisa uu diiwaan gashado si uu doorto golihiisa deegaanka iyo golihiisa baarlamaanka labadaba in badan baanu sheegnay sida hadda Siciid Sulub uu sheegay waxa imika waxyaalaha jira waxa weeye goobaha taan soo marnay in dad badan codkoodii gubtay oo ay khilaafeen nidaamkii loogu talagalay diiwaan gelinta waxaana loogu talagalay marxaladda u dambaysa oo waqtigeedu uu badan yahay oo dhowr iyo 10 maalmood uu yahay inay dadku markaa kaar bedelka iyo maxaan ku dhahdayay meesha uu doonayo codkiisa inuu ula guuro haduu codkiisa doonayo inuu maanta Burco ka qaado oo meel kale uu codkiisa geysto ka tashado dadka xalana nidaamka la raaco waa Maxamed Ibrahim British TV-ga qaranka Soomaaliland Burco